dowladda Itoobiya ayaa maanta si rasmi ah u yeelatay dekad ku taala badda cas taasoo hore u lahayd Somaliland. Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta magaalada Addis Ababa heshiis ballaaran oo ku aadan badda cas la galay dowladda Itoobiya. Muuse Biixi Cabdi hogaamiyaha Somaliland oo labadii maalmood u dambeysay ku sugnaa magaalada Addis Ababa ayaa heshiis Itoobiya lagu siinayo mid ka mid ah dekadaha Somaliland u saxeexay xukuumadda Addis Ababa. labada mas'uul ee Itoobiya iyo Somaliland maamula ayaa heshiiskan kala saxeexday iyadoo goobjoog ka ahaayeen mas'uuliyiin kale oo ka kala socday labada dowladood. Itoobiya oo sanadkii u dambeeyay raadinaysay dekad ay leedahay ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqday dekad ay ka heshay Somaliland taasoo ah mid bilaa canshuura. Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa heshiiskan kala saxeexday inkastoo aan la shaacin magaca dekadda. haddana xogaha hoose aan ka helayna shirkan ayaa sheegay in dekadda Itoobiya loo saxeexay ay tahay